kaasoo gaadha ayaa korkaaga saaran. sida awgeed waxay culimmadu tilmaamaan ammaanaadka acdaadaada, maalan ishu waa ammaano, laakiin maxaad ku isticmaalaysaa? wixii sharcigu baneeyey uun, wixii kale waa khiyaana, khaa'inat alacyun bay noqonaysaa. gacantu waa ammaano, carabku waa ammaano, caqligu waa ammaano, lugtu waa ammaano, waxoo dhammi ammaanay noqonayaan. markaynu dhan kale ka eegno diinta oo dhammi, cibaadaadka, salaada, soonka, waajibaadku saaran oo dhammi waa ammaano. xagga kale markaynu u eegno waa mas-uuliyaadka dhammaantood, ka bilaabanta mas-uuliyadda guriga, reerku waa ammaano, caruurtu waa ammaano, ilaa iyo laga gaadhayo madaxtinimada ugu sarraysa, khilaafatulmuslimiin iyo wixii ka sokeeya, ama umaradhe ama muluukdhe ama states iyo dowladaniman xukumayadhe ama shirkad qof xukumayadhe, wax kasta oo markaa mas-uuliyadoo ku saarani noocay doontaba ha u ekaatee, xataa shaqadaad qabanaysa ha ahaatee, mushaarka qaadanayso, wax kasta oo mas-uuliyadi kaa saarantay waa ammaana, la rabo inaad u gudato sida ugu fiican. waxaana qur-aanku uu tilmaamaya inay tahay sifaadka ugu sarreeya ee bini aadam lagu sifeeyo, honesty. dadka bini aadamka waxa ugu koreeya rususha oo dadka ugu sarraysa. ilaahay subxaana wa tacaala sifaadka koowaad ee uu ku sifeeyey waxaa ka mid ah ammaanada. walidaalika baa nebi waliba maalan fi suurati shucaraa aayaadka isdaba socda markaad akhrido 107 ilaa iyo laga gaadhayo 187 5 nebi meelahaasa ku jira. nebi waliba wuxuu leeyahay innii lakum rasuulun amiin, dada waxaan idiin ahay rasuul amiin ah, wixii loo soo dhiibay xilkeeda qaadayo sidiisa u gudanaya. innii lakum rasuulun amiin. bale rususha cidda waxyiga loogu soo dhiibo, ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya jibriil sifaadka laynoogu sheegay waxa weeyaan alruuxu alamiin, mutaacin thama amiin, nazala bihi alruuxu alamiin. ilaahay wuxuu ku tilmaamaya sifat alamaana, inuu yahay mid aamina oo wixii loo soo dhiibay ambiyada sidooda u soo gaadhsiinaya. nebiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam waa sifaadku ku caanbaxay xataa qabla risaalati, intaan ilaahayba rasuulnimada u dooranin. asaadiqulamiin bay carabi u taqaanay, inuu yahay ku credibility uu leeyahay, hadalkiisu saadiq iyo run uu yahay, wax la qiimayn kara uu yahay, isla markaana aamina. waxaad ka garan kartaa warkii dhex maray ee imaam albukhaari uu soo saaray ee boqorkii romaniska ka talin jiray heraklis lo odhan jiray, iyo markii ay kulmeen nimankii carbeed ee gaalada ahaa oo abu sufyaan hogaaminayo. nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqu u kala diray boqoradii dunida ka jiray ee uu leeyahay islaama. dabeetana heraklis oo yimi bayt almaqdis ayaa waraaqdii u timi. kadib buu wuxuu yidhi ninkan yaa garanaya, wuxuu rabaa bal ninkan waraaqda u soo diray inuu warkiisa helo. isagu de waa halka maanta dowladaha waaweyne ku jiraan buu markaa dunida ugu jiray. marka qof aan laba garanayn isaga agtiisa ayaa waraaq ka helay. qofkan aniga waraaqda ii soo diray waa kuma buu leeyahy, yaa garanaya? waxaa la yidhi qola isku reeriyiin baa joogta magaalada, igu yeedha buu yidhi. 6 nin ayaa u yimi oo carbeed oo abu sufyaan uu hogaaminayo. abu sufyaan waa nin gaala markaasoo muu islaamin. abu sufyaan markuu nebi maxamed 21 sano meelaha la dagaalamayay buu islaama. 2 sane u dambaysay ayuu muslim ahaa, laakiin 21 sannadood nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo horjeeday. wakhtiga kanina markaa waa wakhtigii sulxu xudaybiya u dhacay. almost waa 19 sannadood bay markaa nabiga is hayaan. 19 sannadood isagoo dagaaladii soo dhex mareen oo beder iyo uxud iyo wixii oo dagaali soo dhaceen ayuu heraklis waraysanaya. 14 su'aalood ama 13 su'aalood buu weydiiyey oo uga jawaabaya. su'aalaha waxaa ka mid ahaa oo uu herakl weydiiyey, war ninka kani muxuu idin amraa? waxaanuu wada ii sheeg. wuxuu yidhi wuxuuna amrayaa innahu yaamur bisalaati والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة.
أبو سفيان وقال كورم يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي وليمي وحنا وليمي بويل الصلاة لتكده رون لا شيغو دور سنة لا دور سنادو بلن كل أوفيو يا أمانة أول لقطه وحنا أمروا كاسبير أبو سفيان هرقل الإسلام مركب وحكوا جوابي هذه صفة النبي وحنا دي شيء وصفات كأي نبي يدل هاي مركل وحويدي هل يغدر وحما خيامية بل انفروا ما سمية تذكر انتو بل ما لقلو ما كقبحا خيامة باب كاسية ما سمية وحيدي ماي تانا ما يقانو وكذلك الرسل بيقول لا يغدرون رسول شنا وحما خيامية إذن وحن لنا وصفات كو عامسا إلهي سبحانه وتعالى وكسفيي رسوشيسي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين كيالا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء ورميدني آمنين بولي يدو أنا هيكو آمني يعني رب السماوات والأرض وعرك إلهي وريقا كيرو waxaan uga dan leenahay qadiyadatan amaanadu qiimaha ay leedahay intuu gaarsiisan yahay inay tahay waxa Ilaahay ku sifeynayo rusushii uu doortay ee khalqiga oo dhan uu ka doortay حتى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام علماء السيرة وقوة الماما سيدو أمانة أفليني إيجو إسحية وأي الرمان إني الدلان هذا وحي أي أولي بتانا أمانة وهيي كلامه بحثا بين هذا ومركو هجروني وحلا يدادا علي وحيابه وربي وحكمدها إنه سيدي بي وحي أمانو يناي قال لهيت إنه كذب وعليه وحكى له إلهي القرآن كنت المام يا أمانة إنه تهي صفاتك أغمضا ضدك جنة قوبتا وقصر رئيسك الجلية جنة وهيرر هير كده وقصر رئيس الفردوس الأعلى بالله يدادا فردوسك وقليه إلهي وحكسي فيه طبق الصفات القرآن كنت المامة وحكمده والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقوى أمانة دودة يوحي بلنا يقلان راعبا ليلي حولا قفك الراعب حسمية وحفظ يو إلالية بهالية وحوال بواك النورة إلهي وحولي وقوى إلالية أمانة دودة يعهد دودة تبتنا إلهي وحكوت الماما كواسيني كمدين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الفردوس الأعلى قوة نحلة ينيتاي في سورة المعارج مركة إلهي وحكوت المامية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كذبنا إلهي وحلي أولئك في جنات مكرمون قوة بلن كودية أمانة دودا إلى لنيا وقوة إلهي بولي جنوين لقو كرامي لدجينيو إذن أيها الأحبة أمانة دينها نالكاسي شوفتا رسوشا لغو سفايي مؤمنين تكوي أغو سرية لغو سفايي صحابة حتى كوي أغو مضنا عشرة المبشرين كم يدبو نبو قوت المامية أمين هذه الأمة ينوي يا أبو عبيدة بن الجراح مؤمن دمانتين إلهي النبي قوت المامية حديث السنن أبي داود كيال الصحيحة والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم مؤمن كدبكا waxa la yiraahdaa qofkay dadku ku aaminaan naftoodiyo iyo maalkooda nabadgaliya kaas baa mu'min dhaba waxa kale nabigu inooga waramaya qisaskii umamkii hore iyo siday amaanada u ilaalin jireen waxaan rabaa laakiin qisaskaas xadiiska Bukhari ku taala iyo wixii la madayna dhaafo dhanka kale hadaynu eegno amaanad darradu waxay sifo u tahay cidii aan diin lahayn ama se munaafiqa labada ay u fiirso hadaynu dhahay amaanadu waxay sifo u tahay rusul iyo nabiyo iyo muuminiinta firdaws ilaa gala amaana xumadu ama amaana darraduna waxay astaan u tahay man la diin lah ki aan diin lahayn iyo qofkii munaafiqa labadaas ay calaamad u tahay دي قفك الله يراد آمن بماها معناه هذه وحويان لبضن صفة مدبال لغو صفينية ولذلك يحدث كإمام أحمد صوصار الشيخ الباني الصحيح قلت الماميو وحلي أنس بن مالك ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال
nebigu khudbad ma jeedin buu yidhi ilaa iyo khudbad kastoo nebigu jeediya waxaa ka mid ahaan jirtay laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah. anas ibnu maalik wuxuu leeyahay nebi moxamed hadduu khudbadba noo jeediyo erayada inta badan khutabkiisa ka mid ahaan jiray ee uu mar kasta sheegi jiray waxaa ka mid a laa iimaana liman laa amaanata lah. iimaan ma leh qofka aan ammaano lahayn, walaa diina liman laa cahda lah. diinna ma leh qofka aan ballan ilaalin lahayn. yani waa nooc ammaanada ka mid oo gaar loo sii tilmaamay uun. waa nooc ammaanada ka mid waayo cahdi darradu waa qadri. waa inaad cahdiga khiyaamaysa waa qadr. waalqadru waa nooc min alkhiyaama, waa cagsi lamaana. sida awgeed kaa diin la'aan baa lagu sheegay. munaafiqa markuu nebigu sifaynaya axaadiista caanka aynu naqaano wuxuu nebigu ku tilmaamayaa calaamadaha aayatulmunaafiq buu nebigu yidhi. calaamadda aayad waxa u ah, aayad waa calaama. calaamadaha qofka munaafiqa lagu garto kuwan baa ka mida buu nebigu yidhi. idaa xadaa kadab, hadduu warramo been buu sheegaa. waidaa wacada akhlaf, hadduu ballan qaadana waa buriyaa. hadduu waxyabooho waa khilaafaa. waida tumina khaan buu nebigu yidhi. haddii la aaminana wuu khiyaameeyaa. idan khiyaanadu iyo qadrigu waxay sifo u yihiin ciddii ama diin la ama munaafiqnimo ku dhacday. guud ahaan markaa waxaa layna faray in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha. ilaahay wuxuu idin farayaaba alle qur-aanka ku leeyahay ammaanada inaa u gudataan ehelkeedii ciddii iska lahayd inay ammaanada u guddaan. ammaanadaasi wuxuu doonayaa ha ahaato. ammaanad diineed ha noqoto, mid mas-uuliyadeed ha noqoto, mid reer ha noqoto, mid caruureed ha noqoto, mid diineed ha noqoto, waxay doonaysa ha ahaato. addu lamaanata ilaa ahliha baa la tilmaamaya. waxaana ilaahay qur-aanka aayaad kale ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha waalrasuul watakhunuu amaanaatikum waantum taclamuun. war kuwa iimaanka laga helayow laa takhunuu allaha waalrasuul, alle iyo rasuulkii ha khiyaamaynina. alle iyo rasuulkii ha khiyaamaynina. wax kasta oo mas-uuliyad diineed oo aad qaaday haddaad ka baxdo waa khiyaano aad ilaah iyo rasuulkiisa khiyaamaynayso. sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha waalrasuul watakhunuu amaanaatikum, ay walaa takhunuu amaanaatikum. war ammaanadiinnana ha khiyaamaynina baa la yidhi wa antum taclamuun, idinkoo og. yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud. aayaadkaasoo dhammi فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إلهي وحط الماما يا وروحي أمانة ليدين فري، وحي أمانة ليدين ديبي قتا. آيات كانوا آيات الدين تكور رمي هي مرخاتقة هي وصيادة هي وحي لأنه عودا هنا تسودي وقدته. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حليه 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. 4 شيء هداد قصو قنتهي الدون وحي كلها فيدانها كيالن، يعني كوا قول استاد كجرته. 4 شيء محيي و4 عكسي ووحي منافق الوشيغي. صدق الحديث، warka inaad runta ka sheegto. wa xifdu lamaana, wixii ammaano ana ama xoolo ha noqoto ama sir lagu sheegtay ha noqoto ama caruur lagu dhiibay ha noqoto ama aqoon diineed oo aad leedahay wuxuu doona ha noqdo. wixii ammaano lagu dhiibayna wa xifdu lamaana, ammaanadana inaad ilaaliso. iyo wa xusnu lkhulq wa xusnu lkhaliiqa riwaayo kale, dhaqan wanaagsani iyo wacifatu lmacam, xalaal miirad. waxaad cunayso waad iska hubiso, waxaad liqayso waad iska hubiso xalaal iyo xaaraan wuxuu yahay. si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam
إن الخازن الأمين قفك حولها اللو ديبه خسنت هيها آمن كأه وكي وحولي نبغو عليه الصلاة والسلام وكبحية وحي لفري إساقو أنك على نقصامين هذا هو خسنتشون إساقو شقاك لكم عليه لكن waxa la yidhi khasnajiga aaminka ah waa ka waxa la faro aan kala reebin si fiican u bixiya isagoo waliba ka raaliya buu nabigu yidhi isagoo u dhiibaya cidii la yidhi si hadduu sidaa yeela buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa axadul mutasaddiqiin buu isna ka mid yahay kuwa wax sadaqadaystay buu ka mid yahay bimujarad amaanada inuu sideedii u gutay kaasheerka u ahaa sidii wax la yidhi u bixiyo qura uu bixiyay ayuu wuxuu ku yahay buu nabigu leeyahay qof isna wax sadaqadaystay qof isaguna wax sadaqadaystay markaa soo koobo amaanada wuxuu nabigu gaadhsiiyey xataa inay ka baxdo mas'alada wajazaa'u sayi'atin sayi'atan mithla hadi xumaha haddii qof xuma kuu geysto waxaad xaq u lahayd inta in lag inaad u geysato waxay yidhaahdaan midharhka laga istinooday ee ay qurux badan tahay inaad raacdo waxaa ka mid ah kastoo fuqahadu markay fiqi ahaan u eegayaan hadal la tiltilmaamaan laakiin xadiidkani wuxuu leeyahay addi lamaanata ilaa man i'tamanak walaa takhun man khaanak kii ku khiyaameeyey ha khiyaamaynin buu nabigu leeyahay u fiirso xadiidkan markaasay fuqahadu waxay isweydiiyaan ninkii xoolahaaga dhacay ee aad og tahay xoolaha baad u dhiibtay uu kaa dhacay hadhowba adna jaanis baa ku soo maray xoolo uu leeyahay inay ku soo maraan adna ma u jari kartaa ayay fuqahadu isku taagan yihiin oo qowla leedahay may khiyaano qof muslima umay bannaanayn inaad adna tidhaahdo awal baan dee wax igaga maqnaayeen ana in baan goynayaa ayay fuqaha badani leeyihiin ma taasi ma jirto ma samaynaysid xadiidka daahirkiisuna saasuu tilmaamaya walaa takhun man khaanak kii ku khiyaameeyey adiguna ha khiyaamaynin waxaan leenahay markaa ammaanada majaalaadkeedu waa tiro badan yihiin mid dadku u wada yaqaanaa inta badan oo wata xoolaha xoolaha haddii lagu dhiibo inaanad waxba adigu si gaara uga isticmaalin ama sidii lagu yidhi si aan ahaynba inaanad u isticmaalin taa dadku inta badan waa yaqaanaa inkastoo soomaalida agteeda xooluhu masiibo ku yihiin laakiin balan waxyaabo badan tilmaamno axaadiistu si sariixa ugu soo aroortay inay ammaano yihiin مثلا النبي يقول عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن قفك تلك ويدية هو كأمين قفك تلك ويدية إن أنبسوا مالك لا ضط المامتا وحويا وخيانة قفك استوى مال لطليك وين ندتك اللقوينين داست هذا xisbigani kiini maahee meel darana ka dhaceen talada maqluubka ugu dhiib ama ururkani kiini maahee talada maqluubka ugu dhiib ama taajirkan waa yaro loolamayseene ha u tilmaamin halka faa'iidada ku jirta ee wadda kale u tilmaam ama wuxuu doona ha noqdo qofka wax ku weydiiyey tala ku weydiiyey waa qofku aaminay إذن إن أدمال عدلاء التلمامتا وهو نوع من الخيام نبو نبو تلمامي عليه الصلاة والسلام وحيابا ونبو أمانة كو تلمامي وحاكمي ده دادكو هداي شاكا قاركو شاكايستان وأمانة بو نبو لي المجالس بالأمانة بو نبو لي المجالس بالأمانة دادكو فردية دا قاركا أيشان وأمانه بل النبي عليه الصلاة والسلام وحديث كسيت المامية نكو مركو وركو كوشاقي هدو هريرا يرأيغو حتى هدانو كورن ورهو يحركا قري سيدا سكوية هي أمانه النبي عليه الصلاة والسلام عليه إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة هدو قفورنتو كوشاقو هريرا اسكا ايغو
khalaas waa ammaanaya inaad sheegtaa kuuma bannaana xataa haddaa qofka isqabataan soomaalidu waxay caado ku leedahay marka hore waaba laga yaabaa wuxuu u sheegay inuu hayo laakiin haddii xurgufi dhex marto waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo aadna ku xumeeyo wax kastoo aad ka ogeyd oo qofkan warar kaa soo gaadhay ama aad ka haysid inaad adna akhrido idan waxaasoo dhammi waa ammaana waxa ammaano ah waxa laaliya wixii shaqo laguu diray ee ama adigu aad iskaa u tidhi anaa qabanaya ama aad biljri ku qabatay kay doonaysa ha noqoto mar haddaad mas-uuliyadda qaaday shaqada iyo waxay sir leedoo dhan waa inaad u haysaa u ilaalisaa waxay culammadu yidhaahdaan abibakar markuu zayd ibnu thaabit u dirayey qoraalkii qur-aanka inuu ururiyo muxuu ku yidhi innaka rajulun shaabun caaqil laa natahimuk waxaad tahay nin dhallinyaro oo caqli badan oo aanan tuhmaysan yacni aamina oo xilkaa la saaray sidiisa u gudanaya sida awgeed bay culammadu waxay yidhaahdaan marka horeba haddaad mas-uuliyad hayso dadka aad mas-uuliyadda u qaadanayso soomaalidu waxay ku qaataan qaraabakiil ama indhagarad ama saaxiib ama wixii la mida laakiin waxay culammadu yidhaahdaan waa ammaana walidaalika baa qur-aanka dhowr meelood waxaa ku soo arooray dad shaqo loo dhiibayo oo labadii hablood ee nebiyullaahi muuse uu xoolaha u waraabiyey aabbahood markay la hadlayeen waxay ku yidhaahdeen inna khayra man istaajarta alqawiyu lamiin cid shaqadan aad u dhiibto waxaa ugu fiican qof qawiya qawigu waxay yidhahdeen waa alkafaa'a quwadu hadba baabkaa la taagan yahay waxeedayd meel accountant looga baahan yahay inaad qof kale u dhibto laysa biqawiyin halkaa accountant unbaa qawi ku ah idan quwadu waa shaqadaasi wixii ay u baahantahay kafaa'adeeda bay yidhaahdaan waa qofkii u cuntamayey ammaanaduna dee aqoon kasta uu leeyahay qofku haddaanu aamin ahayn qiimo ma leh saa awgeed baa wuxuu labadan gabdhood tilmaameen inna khayra man istaajarta alqawiyu lamiin ilaahayna ma tacqiibine warka sidiisii buu u daayey sidii ay gabdhuhu u sheegeen bale nebi yuusuf ninkii boqorka ahaa markii loo keenay muxuu yidhi iituunii bihi astakhlisu linafsi falama kallamahu qaala innaka alyawma ladayna makiinun amiin wuxuu ku tilmaamay agtooda inuu yahay mid amiina sifaadkii uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa inuu amiin yahay markuu nebi yuusuf shaqada dalbanayana wuxuu tilmaamay innii xafiidun caliim xafiid yacni amiin ilaahay wuxuu kaloo qur-aanka ku tilmaamayaa xataa qolyaha aynan araga inaga qarsoon nebi muuse markuu shaqo gelinayey qolo jimana baa nebi sulaymaan alla u sakhiray dabeetana wuxuu yidhi yaa gabadhan carshigeedii keenaya gaaleeda soo socota sariirtii boqortooyada cifriitun min aljinni baa hadlay baa ilaahay yidhi cifriit jinka ka mid a ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik inta aanad meeshan ka kicina shaqada ku jirto ayaan kuu keenayaa buu yidhi laakiin muxuu sheegtay mu'ahalaadku shaqadaa ku sheeganaya waa maxay wainnii calayhi laqawiyun amiin kafaa'adaana mid le baan ahay buu leeyaho shaqadaa qaban kara waxaan kaloo ahay mid ammaano leh midaan wax khiyaamaynin idan waxaan leenahay ammaanadu noloshoo dhan bay gashaa waana ka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya inna acradna alamaanata in loo soo bandhigay samada iyo cirka iyo waxaasoo dhan culammadu waxay idhahdaan ikhtiyaar baa la siiyey waayo masaa'ilkii aan ikhtiyaarka la siinin tawcan aw karha markii la yidhi dee waa kuwii ateecay laakiin masalada tan ikhtiyaar baa la siiyey ikhtiyaarkii la siiyey doorasho ayaa la siiyey
faashfaqna minha baa ilaahay yidhi waa ka cabsadeen waxamalaha alinsaan bini aadamka ammaanada qaaday baa la yidhi bini aadamkii qaaday laakiin maxaa lagu sifeeyey ammaano qaadistu nimaan labadan inta badan buu ku sifaysay weeyaan innahu kaana daluuman jahuula ammaanada labadaa sifo dad kale uunbaa lumiya inuu marka horeba daalimiyo u badheedhay ama aqoon darra inay geyso jahli mas-uuliyaduu qaaday uu jaahil ka yihi mas-uuliyad aanu tabiicaadkeeda xambaari karaynin inuu isku qaaday ama inuu markii horeba ahaa maxay daalim uu ahaa wuxuunbaa ilaalin karaa ammaanada labadan cagsigooda qof aan daalimna ahayn caalimna ah aqoonna waxa kanu leh nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay markaa aakhiru zamaanada ama wakhtiyada dambe mawaasiinta bini aadamku intay qaldanto oo uu fasahaado ama se xumaado valueskii dadku ay aaminsanaayeen waxyaabaha soo bixi doonay ugu waaweyn inay ka mid tahay masalada tani sayaati cala annaasi sanawaatun khadaacaat buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxiixu ibnu maaja bini aadamka waxaa ku iman doona sannado khadaacaaduu nebigu ku sifeeyey oo sannadaha kan maxaa dhacaya sannadahan waxay la iman doonaane bini aadamka dhaqankiisii baa isbedelaya maxaa ka soo baxaya markaa yusadaqu fiiha alkaadibu nebigu yidhi beenaalaha waa la rumaysanayaa qofka runta sheegayana waa la beeninayaa khaa'inka baa la ammaano wax lagu aaminayaa loo dhiibanayaa kuwa amiinka ana waxa la odhanayaa waa dad xun umamka arrimahoodana waxaa ka hadli doona arruwaybida kuwa uu nebigu u bixiyey u fiirso wakhtigan waxaa caan noqon doonta buu nebigu leeyahay qaar la ogyahay inay beenaalayiin warkooda in la dhegaysan doono inta badan dadka horbooda ee casrigan dambe siyaasaadka iyo waxaan ka warramaa waxay sheegayaan oo dhamme been bay u badan yihiin uu isna ogyahay dadkuna ogyihiin waxaasaan qaban doona kan baa la samayn doonaa halkan baa laga bixi doonaa waxa uu qoray ee buugga ku qortay iyo wuxuu sheegayaaba isna wuu ogyahay inaanay runtii ahayn intooda badani waxaa laga yaabaa midmid daacada inay ku jiraan laakiin inta badani isna wuu ogyahay inaanu run sheegaynin dadkuna iyagoo og inuu beenaalaya bay rumaysanayaan kow kuwa runta sheegayana waa la beeninayaa buu nebigu leeyahy waxaa kaloo intaa raacda waa waraabo hilba ku rara ma maqashay soomaalidaa tidhaahdaa khaa'inka ayaa lagu aaminayaa mas-uuliyaadkii qof la ogyahay inuu khaa'iniyey laakiin waxaad rumaysantahay khaa'inka hadda inaad toltiine soo dhaca isaguba had leedahay waxaad u ololaynaysaa ee aad u wadaa waxaad rabtaa mid tolkaaya inuu wax dhaco naarta galo socanka ma aha mid tolkaayaad naarta la rabtaa marka kanna waa khaa'in adigoo ku og baa maxay ayaa la aaminayaa kuwa aaminka ana waxaa la odhanayaa waa tuug waxba loo dhiibi maayo intaa waxaa ka sii daran oo uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam umuurta caamka ee dadka waxaa ka hadli doona arruwaybida waxay saxaabadii ku yidhaaheen yaa rasuulallah wama ruwaybida ruwaybidadu maxay tahay dabeetana nebigu wuxuu yidhi waa arajulu taafih aw alfaasiq aw ka waa dadka liito oo dad ummadda hoggaan u noqdo oo arrimaha ummadda dadaan u cuntamin baa ka warramaya that means mas-uuliyaadkii ummadda ee cid ammaanada qaadi kara u baahnaa xataa kuwa ka hadlaya ka warramaya wuxuu nebigu ku tilmaamayay inay yihiin tawaafihu nnaas dadka kuwii ugu liitay ama dee innaga qofkii shaqo waayaa shaqadan qabta socankaa maaha qofkii shaqo helaya ee xoogsan karaya soomaalida wuu xoogsadaa laakiin ninka xoogsiga kale ka soo xidhmo ayaa yidhaahda reerkan uu ama cumaamadda u qaadanaya ama baabkan u gelaya
nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka cabsi qaba wakhtiyada iyo sida ay u faafi doonto wuxuu soo warramay khayru lquruuni qarnigaygan baa u fadli badan buu nebigu yidhi centuriska kanaan anigu noolay ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dabeetana ka ku xiga saxaabiga xadiidka sheegaya wuxuu yidhi mid kale inuu sheegayo in kale ma sii garanayo saddex buu sheegay mise uu ka kordhiyey markaasuu dabeete wuxuu nebigu yidhi inna bacdakum qowman yakhuunuuna walaa yu'tamanuun idinka gadaashiin dad baa iman doona wax khiyaamaynaya oo wax duul la aamina aan ahayn xadiidku uu sii wadaa calaamadda u dambaysu maan idiin sheegaya uu tilmaamay wuxuu ku sheegay inay dad khiyaamalowya yihiin wuxuu kaloo nebigu ku sheegay khiyaamalowga dadkaa ahi haddana inay yihiin buu nebigu yidhi dad buurbuuran wayadharu fiiha saman buu nebigu yidhi calayhi salaatu assiman yacni tuugnimadaa ka muuqatuu nebigu tilmaamaya waa dad wax khiyaamaynaya oo aan la aamini karin laakiin haddana ah buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wayadharu fiihim assimanu baruurtaa xoog uga muuqan doonta buu leeyahy wakhtiyadaas nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa nin reer miyiya soo galay isagoo nebigu saxaabada la hadlaya markaasuu yidhi yaa rasuul allah mata saaca qiyaamuhu waa goorma nebigu muu eegine warkiisii buu iska watay saxaabadii meesha fadhidaa hoosta ka guuxguuxoo qaarna waxay idhaahdeen waar nebigu malaa ma maqlay ninkani wuxuu leeyahay qaarna waxay idhahdeen mee wuu maqlayee wuu iska daayay laakiin nebigu warkii uu hayay calayhi salaatu wasalaam markuu dhammaystay ayuu soo jeestay markaasuu yidhi ninkii su-aasha waday mee waa aniga buu yidhi mata saaca buu leeyay qiyaamu goormu dhacaya nebigu qiyaamu goortu dhacaya kama warhayo oo ciidimo oga ilaahay unbaa suu qur-aanka ku sheegay og laakiin calaamadihii loo sheegay wax ka mida buu nebigu u tilmaamay wuxuu ku yidhi idaa dayicat ilamaana faintadir isaaca ammaanadu hadday lunto oo la ammaano waayo qiyaamihii fila buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana ninkii su-aal kaluu nebiga ku celiyey oo ah kayfa idaacatuha yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow sidee bay ammaanadu u lumaysaa waa qaabkee idaa usnida alamr iyo idaa wusida alamruba waa la soo arooriyaye idaa usnida alamru ilaa gayri ahlihi faintadir isaaca buu nebigu yidhi arrinka ciddii lahayd cid aan ahayn haddii loo barkiyo ama loo tiiriyo carabta iyo dhaqamada xataa soomaalida qaarkood reer jabuutiya baa leh barkin weyn baa guriga la dhigaa dadka loo dhiga ay ku fadhiistaan barkimooyinka adag kuwan la barkada ee caadiga ah oo qofku markuu xaafadda yimaado loo dhigo uu ku fadhiisto carabtuna saasay isticmaali jirtay marka qofka barkintaa loo dhigay ku fadhiistay dee arrinkiisagaa loo tiiriyey marka idaa wusida alamru min alwisaada ay idaa usnida alamru haddii arrinka loo tiiriyo buu nebigu yidhi cid aan ehel u ahayn qiyaamaha eego markaad aragto dadka wax maamulaya ama dadka horkacaya ama mas-uuliyaadka qaadayo aan ahayn kuwii xaqa u lahaa aan ahayn kuwii mas-uuliyadda qaadi lahaa markaa qiyaamaha fila buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxay idhahdaan imaamu albukhaari raxmat ullaahi calayh xadiidkan wuxuu ku soo arooriyey bay idhahaan fii kitaab alcilm kitaab alcilmi iyo ammaano maxaa iska galay xadiidkan markuu soo aroorinayay wuxuu ku soo arooriyey baa la yidhaahdaa kitaab alcilmi kitaabka uu cilmiga kaga warramayo ibnu xajar markuu sharxaya isna waxa uu ku tilmaamayaa munaasabada xadiidkani uu la leeyahay xadiidkan matnigiisu noocaaya uu masaladan la leeyahay waxa weeyaan wakhtiga kan jahligaa badan doona cilmigana waa la rafcinaya weeyaan buu leeyahay yacni haddiiba ay dhacdo dad aan meesha u cuntamin in la geeyey meeshu waxaa ka jira jahli iyo aqoon darra ka jirta ayuha alaxiba ammaanada ilaahay qur-aanka isagoo ka warramaya niman ahlu kitaab ah oo la ceebaynayo ceebaa qur-aanku uu soo arooriyey ahlu kitaabka waa tiro badan yihin laakiin
qolo sifada ammaanada wax ka mida laga helay ilaahay waa u qiro waa u tilmaamo nimahan ahlu kitaab baa ilaahay yidhi ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك أهل الكتاب وحكم دبا إلهي يري قار هداد قنطار حولا أوليبتو أدقو إيمانيس آمنة وحكا لو كم دبا إلهي يري قار هداد دينار أوليبتو أدقو صوغارين قارنا نقصنا هداد أوليبتو وهينيا قارنا وحي إلهي كتل مامي محي دينار هداد أوليبتو لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ما بحين أيوه ilaa iyo inta de xisaab la dul taagantay uun la controlayo la ilaalinayo mooyaane si kale laga soo saari maayo waxa meesha jira markaa wuxuu yahay ammaanadu dhanka khayrka haddaad u eegto waa sifadii rususha iyo saalixiinta iyo dadkii hore ee saalixiinta iyo muuminiinta jannatul firdaws dhaxlaysa ee jannada lagu karaameeyay waa sifadoodii أمانة الرضا دنكيدا هداد اكتنا وأما دادك آخر الزمن كأي وقت قائما يدبتو تشرتو وعلامات قيامها بوا إيوه دادك الدين لا وما منافقين تا علامة دودوية حاين صار المركة وحين صار نوحي يقف ولبا إنبو مسؤول كي انت بدن بني آدم كوحة عادية soomaalida mahmaahdeedii ahaa maxay soomaalidu tiraahdaa takarta saaran ma arkay wuxuu arkaa maxay takarta takala saaran dadka ba malaynta takarta garanaysa yar baan u malayn takartu waa baal yar oo xoolaha cuna marka qofku maroodigu bay yidhaahdaan takarta saaran ma arkay ka kale ta saaran ma arkay waxay uga dan leeyihiin ceebtaada haddaad arki weydo aad ceebta dadka kaluna aragto waa dhib waxaan uga dan leenahay dadku marka ammaanada iyo waxaan la soo qaado inta badan kuwa kale tasaaran buu arkaa oo madaxda iyo maamulada iyo kuwa waxa saaran laakiin kuwa inaga kaalay adiga taada ku khusaysay inagu ammaanada intiina saarayd ma xifdinay ishaadi dhagtaadi carabkaagi gacantaadi adinkaagi jeebkaagi lacagtaadi caruurtaadi reerkaagi aqoontaadi adu ma xifdiday takale ka saarani aakhir isaga ilaahay ku xisaabinaya adiga xilka ku saarani wuxuu yahay waxbaad maanta mas'uul ka tahay aakhirna ilaahay ku weydiinaya subxaanahu wa tacaala waxbaad mas'uul ka tahay ay ugu horeyso naftaadu oo ku xigo reerkaagu oo ku xigo caruurtaadu oo ku xigo jaarkaaga iyo inta kugu xiga ay ka wada horeyso diintaadu adiga mas'uuliyaddaas ku saaran مسؤولياتك إن صار إلهي وحينا ليه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم بلين يري واركوا إلهي الرسول رمييو الله الرسول خياميننا الله الرسول كي خياميننا وسو خيامين إنسان وتخونوا أماناتكم ولا تخونوا أماناتكم ورمانة دي إنها خياميننا با إلهي ليه سبحانه وتعالى إذن أمانة دينا صارنا ويتربضنتي ويتربضنتي عقيدة دا أمانة كاسارا دينك ما برت عبادة دا أمانة كاسارا حلبة كاسارا هي مسؤولية سيدي الرب كفرين ما وعبادة ستي نفتاضة أمانة كاسارا مرة ورطيون نارتا ما كايلالي سيوحي لقولي كايلالي وبتكاقا أمانة كاسارا مسؤولية بكاسارا مقودتي إذن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كما كسفونا مسكوا مسفونا كوا أمانة يبلموه إلالية شقضى قال ذو شقيسان أما مسلم شقيسان أما مساجدك شقيسان وأمانة ما إتقان الثان ما سقطان وقت قوضا ما هو إلى لسان وحي وأمني ما سودا ما هو حفظ سيدي الولو ودقن ما ودقن طا مسوا قالوا الله يسكن عمريا وحرم وأمانة إذن درس جيجو waxaan jeclaa inaan iska soo koobo waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay
nusuus badan oo quraan iyo xadiida soo arooray ciddii rabta kutubtay dib ugu noqon doontaa oo masaladaa ka warramaya waxaana culammadu tilmaamayaan fii kulli labwaabna inay gasho oo baab aan abwaabta ka mid ah oo aan ammaano gelini inaanu jirin nabiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa dhiiri gelinaya ayuu in badan wuxuu uga warramay xataa umamkii hore dadkii ammaanada lahaa isna wuxuu tilmaamay nin caqaar ka iibsaday meelahan dhismayaashu ku yaalliina meeshiibuu wuxuu ka helay jarra kuusad ama ashuun ama jalxad waxaad u taqaanaba weel uu ku jiro dahab ayuu meesha laga soo qoday dabeetana weelkii dahabkii intuu soo qaaday ayuu ninkii dhulka uu ka iibsaday buu u keenay wuxuu yidhi war anigu meesha baan kaa iibsaday laakiin meeshii dahabkaasaa ka soo baxay dee anigu dahab maan iibsane dhulkaan iibsaday dahabkaaga waa kan buu yidhi ninkii kalena wuxuu ku yidhi war anigu wax ku jirana ma ogeyna dhulkaasaan kaa iibiyey adaa isule wixii kuugu jira iska qaado nabigu isagoo tilmaamaya nimankani ammaanaadka say u ilaalinayaanba wuxuu yidhi labadii nin waxay noqotay inay maxkamad isla galaan iyagoo isku haysta adaa leh iyo adaa leh innaga maxkamadeennu maxay ku salaysan yihin anaa leh iyo anaa leh laakiin labadan maxkamaddooda waxay ku salaysantahay adaa leh iyo maahee adaa leh bay isku hayaan kadib baa ninkii u garqaadayay qaab kalu ugu garqaado wuxuu ku yidhi carruur ma leedin markaasay yidhaahdeen haa mid baa wuxuu yidhi inan baan leeyahay kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahay deetana wuxuu ku yidhi labadaa isu guuriyo oo dabeetana intan siiya buu ugu garraqay labadaa intaa isku dartaan xadiiska bukhaari ku yaalla labadaa intaa isku dartaan buu yidhi dabeetana labada ku sadaqadaysta xadiisku macnaha uu tilmaamaya waxa weeyaan dadkani siday rabeen inay u xalaal miirtaan inaga sharcigeenna waxba ka yaalla rakaaska iyo macaadinta iyo waxyaabaha dhulka laga helay iyo axkaam bay leeyihin laakiin markaynu axkaamta ka nimaadno mafhuumkaynu ka qaadanayna waxa weeyaan dadkani ammaanada say u ilaalinayeen ayaa waxay keensatay inuu nebi maxamed uga warramo calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii si uu ugu dhiirigeliyo ammaanadu qiimaha ay leedahay wuxuu kaloo nebigu uga warramay nin reer banu israa'iilah oo nin kale 1,000 diinaar ka amaahday markaasuu yidhi markhaatiya ii keen kafaa billaahi shahiidan buu ku yidhi ilaahay baa markhaati inoogu filan markaasuu yidhi haddaba kafiil ii keen kafiilku waa qof dee kafaaladan qaada markaasuu ku yidhi kafaa billaahi wakiilan ilaahay baa wakiilla ku filan run baad sheegtay buu yidhi xoolihii buu u dhiibay ninkii badduu galay xaajaadkiisii buu soo gutay wakhtigii ay ballameen ayuu wax dib u soo qaada waayey wakhtigii ay ahayd ammaanada inuu iska celiyo ayuu wax dib u soo qaada ayuu waayey waxaanu arkay wakhtigii inay dhaafayso deetana nebigu qisadaa wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi qori buu soo qaaday markaasuu xorday dabeetana lacagtii buu ku guray 1,000 diinaar markaasuu waraaqana raaciyey wuu u diraya ninkii intuu badda ku tuuray buu wuxuu yidhi ilaahow adaan markhaatina kaa dhigtay kafiilla kaa dhigtay ninkiina wakhtigiisii way gaadhay si aan ugu geeyo kalena garan maayo ilaahu iga gaadhsii buu ku yidhi intuu badda ku tuuray ilaahi subxaana wa tacaala baddii buu ku soo qaaday buu xadiisku tilmaamaya rabbi waa soo gaadhsiiyey ninkii kale oo ayuunbaa badda maalin yimi isagoo eegaya bal inna wax markabi inay soo socdaan oo dee ninkii uu xoolaha ku lahaa wakhtigii waa joogaaye inaynu soo socda buu meeshii yimi dabeetana
qorigan soo caariyay ee baddu meesha ku soo tuurtay buu helay qorigii buu eegay lacagtiisii iyo warqadii buu ka helay والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك ورغض وحكو قرن إلى ما كنا ارتي وكد دالي إن هلا مركب أن صوف ولا سيان حولها كوكو كانوا وح أن صوف لنا وان واي إحساسا كوكو صادري إن إلهي كاسو غارسيو أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي على كل حال إلهي سبحانه وتعالى وكجودي حديث كم حنا بيقول شيء يا بلنك أي دتكو قران سيدا دتك صالحين تيجوا إلى لنيين وحنكو سوكوبة يا مركا قصص كساء أروري النبي كساء أروري وتر بدين أحاديث أمانة ذا هي النوعيات كده قال قديسان كساء أروري وتر بدين قرآن كمسائل كاس كساء أروري سدة بنية ستوسبة وكساء أروري وتر بدين أمانات كنا وينغان لنرى الشعور بيكوشيران وحقف والبصارا مركاسية وبدبادية هدو نغضب مؤمن كاو نبي الشاقي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هدو كسف وبنو بدبادية هديك لنا صفات المنافقين تيكوي الدين لأنت أي كل عيا فاختر لنفسك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أنا وحوجا وعد قوم أنا دين شجع وحي سؤال ديننا علماء ديننا ويدينسا شيخي نيدي السلام عليكم.